السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي وعن وناكسن ميل كاستو الدنيا كجوكتان كسو دوادا وربعينادي وركي ودنبيي ee ciyaaraha saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Arsenal oo xasuuq baan u geysatay kooxda Forest halka kooxda kubadda cagta Manchester United oo jeegto garoonkeeda maslaxariyada ay guul dirqi ka gaadhay kooxda lagu magacaabo West Ham ayaa saaxiibay in wadaagi doona haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenan fadlan subscribe noo share like sheertana lagu dhiirigeli saaxiib waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates Stadium ku soo dhaweysay kooxda yarta ah ee lagu magacaabo Forest kooxda Arsenal ayaa ku soo gashay dardar xoog leh maadaama ay joogto minankeeda kooxda Arsenal oo hogaaminaysa horyaalka Premier League waxa ay si dhiirigelisay ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta Gunners oo si fiican ugu yaacday ama weerar degdeg ah ugu qaaday kooxda lagu magacaabo Forest oo ahayd mid galabta weerar celis badan ay ku sameeyeen kooxda Arsenal dhagaha iyo maskaxdana ka galeen weeraryahanada Arsenal khadkeeda dhexe aad isku raacsanaa waxaan ognahay kooxda lagu magacaabo Arsenal inay si xun u gashay ama xasuuq baan u geysatay kooxda lagu magacaabo Forest Arsenal sanadkan waxay leedahay waxaan qaadaya horyaalka Premier League sanadkan way qarantaa kooxda kubadda cagta Arsenal inay noqoto champion maadaama kooxdan la ogyahay inay guulo badan ay soo gaadhay horyaalka Premier League ayna tahay leeliyaasha ama hogaamiyaasha horyaalka Premier League Arsenal oo aan loo beeran sidan oo kale 20 sano ee la soo dhaafay maadaama aysan wax gool ah ama wax koobka horyaalka Premier League aysan ku soo guuleysan oo aysan hogaan u soo qaban laakiin sanadkan ka duwan tahay sanadii hore ee la soo dhaafay maadaama Arsenal ilaa bilowga horyaalka Premier League oo la ciyaaray kulamo kor u dhaafay 10 kulan ay hogaaminayso horyaalka Premier League waxaan ku hogaaminaysaa hal dhibic maadaama kooxda kubadda cagta Manchester City ay afka u soo saarday kooxda lagu magacaabo Arsenal oo garoonkeeda Emirates Stadium ku soo dhaweysay kooxda Forest ayaa waxay ku soo laabatay Arsenal boon dhufsha ah oo weerar degdeg u qaadaysa goolka kooxda Forest waxayna kooxda Arsenal 5-0 kaga reysay Forest Arsenal gambar loo karowa Arsenal habar iyo gambar ha ka yaabin Arsenal way tagtaa Arsenal meel u socotaa Arsenal jeesanta Arsenal wadahaysa Arsenal bunta ka sii socota Arsenal xaga guusha u surcelinaysa saaxiib arna sanadkan sanadkan waxay tahay Arsenal shore aan barnahayn Arsenal jamaahirteeda ciyaaryahanada waxay dhaar ku mareen in sanadkan qaadi doonaan horyaalka Premier League kana soo dejin doonaan magaalada London ay garoonka Emirates Stadium marka saaxiibada Arteta iyo xirtiisu sanadkan amada dalma haysan karo ku tuura saaxiibayaal sanadkan balli biyood ay dhigteen Arsenal waxay dhaheen annaga balli biyood ay dhigteen halka nadaasha kale ee kooxaha weyn oo dhan sanadkan Arsenal aad looga baqayo Arsenal jileec aha Arsenal lagu diceysan jiray Arsenal markii lagu horimaado dadku ay natixi jireen oo saddex dhibcood si dhigan jireen laakiin Arsenal way ka soo tagtay oo Arsenal laga baqo Arsenal walwal iyo wax walba laga sii gaashanto ay noqotay kooxda kubadda cagta Arsenal marka sanadkan Arsenal saaxiibayaal meel fiican ay u socotaa Arsenal hadda ka soo qayb galin sanadkan Champions League waxaan qoraysaa Arsenal faalisa maadaama hadda ay horyaalka hogaanka horyaalka Premier League saaxiibayaal waxa kale oo ay doonaa kooxda lagu magacaabo Manchester United oo kulan ka dhacay maslaxariyada guul dirqi oo gaadhay kooxda lagu magacaabo West Ham kulankaas waxa uu ku dhamaaday 1-0 goolka qura ee kooxda kubadda cagta Manchester United waxa uu dhashay laacibkooda Marcus Rashford kulankan ayaa ahaa kulan aad u xamaas badan maadaama kooxda Manchester United uu badbaadin badan u sameeyay boorta ilaaliyahooda ee lagu magacaabo David De Gea ayaa wuxuu ahaa maanta ama caawa kulanka ka dhacay maslaxariyada ee garoonka lagu magacaabo Old Trafford macnaha geesiga u soo baxay Manchester maadaama ogaan gool badan oo gool loo filan karay inuu ka badbaadiyay laacibka reer Spain ee lagu magacaabo De Gea waxa uu sameeyay kulankii hadeertaan waxa inaba caadi ahayn waxa uu noqday macnaha garoonka ninka ugu saameynta badan maadaama ogaan booniyaal badan oo khatar ah وخبادي لاعب كريسبين ديفيد دقيا مانشسترنا waxay ka soo maqatay afarta ugu sareysa in horyaalka Premier League Arsenal ayaa hogaaminaysa
Manchester City ayaa ku xigta Tottenham iyo Manchester United ay saaxiib noqonayaan halka kooxda kubadda cagta Chelsea oo dambeedka bidix la gashay ay ka soo muuqanayso kaalinta lagu magacaabo kaalinta saaxiibayaal wararkeenii ku saabsanaa horyaalka Premier League ee kulamadii maanta leelay intaas ayaan kusoo gabeynaa waana ku mahadsantihiin saaxiibayaal janqadkiina